زوجتك وأنكحتك على كتاب الله وسنة رسوله بارك الله لكما جمع بينكما بالخير. runta nolol qaybsiga ayaa loogu duugay xabagta diinta islaamka iyada oo la oofinayo yoolka nolosha wanaagsan ee guurka waa meher ku xidhnaan iyo mas'uuliyad. dumar baa xafladda abaabulaya labis wacan iyo dheeh subkan oo dareenka farxadda lagu laday ba ay la dhalaalayaan. dhegtu cod wanaagsan bay maqlaysaa, ishuna sawir qurxoon bay daawanaysaa. waa galbis ammaan iyo sagootin. waxaa mustambeedka muuqaalka ka dayaamaya codka heeladii laylay dhud yahay xalay moodhar baa ila dhexee miyaanu dhaylanuusku ku iman. gacal baa gaaf agaasimaya sida kuusha ayay giraantu isu meegaartay. waa daqiiqado afka iyo addinka aadanuhu wada jiraan oo habsamida dabiiciga ahi waxay muujisay aadanaanta samaha. rag baa huga dhaqanka ku hagoogan, haween baa hiddaha ku siyaaqan. meel halkeer ahna carruur sharaxan baa dheelaysa. waxaa lagu qaaday heestii arooska ee ladnaan ku waara. dareenka samataliska ayaa daaran oo xumaha kansha lagu xasuusto looma hayo. humaaga nacabkuna hadda xaadir ma aha. kooska tusmada geedka quruxda ee laamalowshaha oo inta lebiga ku dhex beermay kor laamihiisa ugala baxay oo dabayshu waraarinayso ayaa loo sara kacay. muuqaalkan kooban waxaa lagu duubay dalka Kanada maalmo kadib burburka qarankii Soomaaliyeed. sida habmaamuuskooda laga garan karo waa dirkii dawladda oo ma aha dhashii jahawareerka. maanta sida ay dadku u dhagaysanayaan quruxda faneed ee muuqaalkan ee raallinimada lagu dareemayo samaha loo buseelay iyo sida aan gayigeenna hagaag looga doonayn. waxa uu Axmed Gaaxnuug ku soo koobay Soomaalidu waxa ay isla heli weyday sida ay tahay iyo sida ay rabto. La